maalmo badan waxaa laga yaabaa inaad cabsi darteed hoos u dhihi jirtay al-shabaab waxay soo dhex maraan ciidanka dowladda oo ay lacag siiyaan si ay shacabka u qarxiyaan. hadalkan hadda uma baahna inaad hoos u tiraahdid oo madaxweyne xasan sheekh ayaa kor u yidhi. ciidanka dowladda albaab muddo u xirnaa ayaa lagu jebiyey asbuucan. intaan ka badan lama qaadan karo isku milanka. al-shabaab sannado badan ayay leynayeen shacabka Soomaaliyeed iyagoo mararka qaar adeegsanaya ciidan mushaar ku qaata inay shacabkaas ilaaliyaan. rag badan oo al-shabaab gacansaar la lahaa oo laamaha amniga ee dowladda ku jira waxay maanta ka fakarayaan baxsi, shaqo ka tegis ama xabsi. hanti dheeri ah oo ay qaarkood samaysteen iyadoo la og yahay sida uu mushaarkooda u yar yahay ayaa sidoo kale la baarayaa hadda. inaad $75,000 ku iibsatid dhimashada 50 qof oo muslim ah oo Soomaali ah wax ka xun oo lagu kici lahaa ma jirto. in qofkii ku kacay falkaasi foosha xun uu weli haysto nolol caadi ah, guryo dhisanayo, rajana ka sii leeyahay nolosha ayaa ah midaan marnaba la aqbali karin ayay leeyihiin dadweynuhu. Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho sanado badan waa la isku bareeri waayey. waxaa la gaaray in qof la og yahay inuu gaari qaraxa caawiyey ama al-shabaab siiyey laaluush si ay qarax ugu soo iibsadaan in la iska dhaafo qabiil ahaan ama dan kale oo lagu qaba awgeed. marar badan waxaan falanqaynteenna ku sheegnay in iyadoo aan la isku bareerin inaanay xamar daawo sax heli doonin. maanta waxaa muuqata in la isku bareeray. ganacsato iyo saraakiil ayaa xabsiyada yaalla. qaar waxaa loo haystaa qaraxyo la gudbiyey, kuwana inay al-shabaab lacag ku caawiyeen. magaalada kuwa gubaaya, kuwa gadanaya iyo kuwa qarash gareeyey waa isku garab, waana inay isku ciqaab noqdaan ayay leeyihiin shacabku. madaxweyne xasan sheekh wuxuu xaqiijiyey inay baaris ku socoto saraakiil gacansaar la leh kooxda al-shabaab. ila sirdoon ayaa sidoo kale iyaguna noo xaqiijiyey inay xiran yihiin saraakiil qiraal ah. inuu madaxweyne Soomaaliyeed u bareero inuu xaalka ciidanka ka run sheego oo aan shacabka loo qarin isku milanka sanadaha badan jiray waxay caddeynaysaa inuu isbeddel weyn ku dhacay dhaqankii hursanaa ee madaxda Soomaalida. haddii ay wax walba sii hursanaadaan lama haleeli doono xalka. dhanka ra'iisul wasaare Xamse isna wuxuu fooda daray kiis aad looga boqo, laakiin bulshadu isku raacsan tahay in musuq iyo xaqdarro badan ay ka jirto. waa arrinta shaqaalaha rayidka ah. waxaa doodu ka jirtaa sida loo qoray markii hore, sida ay u shaqeeyaan, lacagaha ay qaataan, aqoontooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin habacsanaanta dowladnimada Soomaaliya. waxaa muddo fog la aaminsanaa inaysan 3 meelood 2 ka mid ah dadkani shaqaale ahaan u shaqaynin, taasoo ugu dambayn asbuucani uu soo taabtay ra'iisul wasaaruhu. waxaa kaloo la sheegaa in 3 meelood meel ka mid ah dadkani aanay dalkaba joogin. meelaha qaar wasiirro hore ayaa dad ay lacagaha la qaybsadaan ku qortay. guddiga shaqaalaha laftiisa ayaa fadhi ku godan tahay. shaqaalahan oo 5,700 ah wax weyn inaanay dowladnimada ku kordhin ayaa miiska saaran. inaan tayo lagu xulin oo reero iyo saaxiibtinimo lagu shaqaalaysiiyey ayaa ka sii xaqiiq badan. waxaasoo dhan kadibna maba shaqeeyaan badankood oo lacagta waa iska qaataan. ra'iisul wasaare Xamse wuxuu hoos gacanta u geliyey meel madaxdu kor ka fiirin jirtay kadibna ka gudbi jirtay. mawduucan wuxuu yeeshay hadalhayn badan. in askari qaadanaya $200 lagu halleeyo inuu sugo amniga shacabka, shabaab dalka ka saaro, xuduudaha cadowga ka sifeeyo, qof aan shaqaynina uu bishii helo $700 ama $1,200 waa mid ka mid ah astaamaha musuqa iyo cadaalad xumada ka jirta Soomaaliya.
ila xafiiska ra'iisul wasaare xamse ka tirsani waxay sheegeen inay ka go'an tahay ra'iisul wasaaraha in arrintan xal buuxa laga gaaro, wuxuuna u saarayaa guddi in la hubiyo tirada, tayada dadka aan dalka joogin ee shaqada isaga qoran iyo kuwa shahaadooyinkooda iyo mushaarkoodu ay iska been sheegaan. sida halkan wax looga qabto waxay bilaaw iyo calaamad u noqon doontaa ra'iisul wasaare xamse iyo xukuumaddiisa, laakiin shacabku waxay si weyn u bogaadiyeen inuu ra'iisul wasaaruhu u bareeray arrintan. maxay kula tahay adiga?